السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا عشر كله oo luqada ingiriisiga cashirkaana waxaan ku bari doonaa erayo dhowr ah oo ku saabsan doomaha words about boats balse intaan cashirka u guda gelin fadlan subscribe inoo saar channelkeena adigoo mahadsan haddaad nala joogi jirtana oo subscribe hore noogu saartay fadlan share iyo comment iyo like noo saar sharena u dheh asxaabtaada meel kasta ay joogaan fadlan ka faa'iidayso casharkan iyo casharada dambe aan soo geli doono waa casharo aad iyo aad muhiim ah ee ku saabsan barashada luqadda ingiriisiga magacayga waa cabdi xasan markaana waxaan gudagalayaa fasiraada cashirka words about boats erayo ku saabsan doomaha jet ski waxaa la dhahaa mooto iskaafo ama mootada badda dusheeda lagu dulwado dadka dalxiisayaasha ayaa badanaa isticmaala waxayna badda dusheeda ku wadaan mootadan ayagoo ku raaxaysanaya badda korkeeda submarine waa gujis ama markabka ciidamada badda ay oo quusa biyaha hoostooda ayuu maraa waxaa la dhahaa submarine ship waa markab boat waa doon ferry waa doon weyn aad iyo aad u weyn marka dadka ayay qaadaa dhinacan ayay ka qaadaa dhinaca kale ayuu gudbisaa oo magaalada badda dhexdeeda ayayna ka shaqaysaa markasto dhinacaana mar aadaysaa marna dhinaca kale baabuurta iyo dadka ayay gudbisaa fishing boat waa doon kalluumeysi a house boat waa doon dusheeda la degan yahay ee dadka degan ay isticmaalaan sida guri ay u isticmaalaan speed boat waa doon dheereysa oo aad iyo aad xawaaraheeda u dheereeya waana aad u oroda doomaha kale ayaa lagu soo qabtaa waxaana badanaa adeegsada ciidamada badda ilaaliya speedboat yacht waa doon weyn oo kuwa raaxada ah lifeboat waa doon badbaado doonta dadka badbaadisa waaye markii maxay ahayd badda ay maxay ahayd doon kale ku degto ama ay ku gadoonto doontan ayaa loo diraa ciidamada xeebaha ilaaliya ayaana badanaa u dira kadibna way kusoo qaadaan dadkii ama ma ahe doomaha yaad ama markabkoo kale ayay dusheeda ayay saaran tahay markii dhibaato ay dhacda ayaa la adeegsadaa waxaana lahaa lifeboat aan ku celiyo marka fasiraada ereyada jet ski waa mooto iskaafo ama mootada badda dusheeda lagu dulwado submarine waa gujis ama markab oo gujis ah oo kuwa dagaalka ah ship waa markab boat waa doon ferry waa doon weyn oo dadka iyo maxay ahayd dadka iyo mootooyinka iyo baabuurta dhanka kale u gudbisa oo biyaha dhanka kale u gudbisa dhanka kalena dad iyo baabuur kasoo qaada dhanka kale usoo gudbisa ayaa la dhahaa ferry fishing boat waxaa la dhahaa doonta kalluumeysiga oo badda aada soo kalluumeysata kalluunkii dib u keenta ayaa la dhahaa fishing boat houseboat waa guri oo sida guri camal ayaa loo degan yahay laakiin waa doon dusheeda oo ay houseboat ayaa lahaa doon sida guri camal loo isticmaalo waayo speedboat waa doon dheereysa yacht waa doon weyn oo raaxa ah oo dadka lacagta leh ay ku raaxaystaan ay ku shiraacdaan sports ay u isticmaalaan sida sport oo kale ay u isticmaalaan ayna ku raaxaystaan xilliyada samarka lifeboat waa doonta dadka badbaadisa ayaa lahaa lifeboat doonta badbaadada cashirka qeybtiisa kale ayaan gudbaynaa markana canal boat waa doon kanaalka dhexdiisa ka shaqeysa ama kanaalka dhexdiisa loo isticmaalo sailing boat waa doonta shiraaca ayaa lahaa sailing boat oo lagu shiraacdo boat trip waa safar doon oo lagu safrayo kayak waxaa lahaa doon aad iyo aad u yar oo 2 qof ama 1 qof qaato oo godad leh godkaas dhexdiisa oo qofka ku fadhiisanayo wuxuuna ku wadaa usha doonta lagu wado oo loo yaqaano paddle canoe waa doon alwaaxa ama rowboat waa doon alwaaxa oo huuri waaye waxaana lagu wadaa usha doonta lagu wado patch waa doonta alaabaha culeyska qaada oo aad iyo aad u weyn waa doon aad u weyn oo alaabaha culeyska qaada ama markab yar oo kale waaye tie up a boat doonta markii la xiro
oo browsinka loo tuuro ayaa lahaa tie up a boat. Doonta xir. A boat rocks. Doonta markay dabaysha dhankan ama dhanka kale ee u wadwadayso waxaa la dhahaa a boat rocks. A boat capsized. Doonta way gadoontay. A boat capsized. Doonta way gadoontay. A boat sank. Doonta way degtay. A boat sank. Doonta way degtay. A boat race. Doonta tartanka. A boat race waa doonta tartanka. Paddle waa alwaaxa lagu wado doomaha. Life jacketna waa jaakada badbaadada. Jaakada badbaadada ayaa lahaa life jacket. Marka aan ku celiyo, canal boat waa boat kanaalka loo isticmaalo oo lagu dhex maro oo lagu dhex socdo. A sailing boat waa doon shiraac. A boat trip safar doon waa. Kayak waa doon aad iyo aad u yar oo hal qof ama laba qof ay saaran yihiin oo god leh. Godkaas ay ku fadhiisanayaan, ay qoriga doonta lagu wado ay ku wadaan, badanaana kalluumeysi ayay u aadaan ama baashaal ahaan ayay u wadaan doontaas. Waa doon aad iyo aad u yar. Canoe ama rowboat waa huuri ama lash. Barge waa doon weyn oo alaabta culeyska qaado. Tie up a boat. Doonta soo xir. A boat rocks. Doonta markay dabaysha dhankan iyo dhanka kale u wado waxaa la dhahaa doonta a boat rocks. Markaasaa ereygaas loo isticmaalaa. Doonta markay dabaysha marba dhan u wado ayaa la dhahaa a boat capsized. Doonta way gadoontay. A boat capsized. Doonta way gadoontay. A boat sank. Doonta way degtay. A boat sank. Doonta way degtay. A boat race. Doonta tartanka. Paddle waxaa la dhahaa qoriga lagu wado doomaha. Life jacketna waa jaaketka badbaadada. Life boat ayaa soo aragtay, kana waa life jacket. Marka cashirkan waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysateen dhammaantiina. Intaan ku kulmi doono cashir midkaan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.